gelinkii dambe maalintii shalay oo axad ahayd muuqaalkii laga baahiyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo dood badan dhaliya ayaa maanta mar kale waxaa telefishinka Al-Jazeera uu ka daabacay maqaal dheer. maqaalkaas oo diiradda lagu saaray macluumaad ku gadaaman muuqaalka Netanyahu laga soo bandhigay. sababta looga duubay ra-iisul wasaare Netanyahu isagoo ku sugan goob maqaaxi ah waxa ay ahayd in la muujiyo ama la beeniyo ra-iisul wasaare Netanyahu in la dilay. maqaaxida Sataaf ayaa lagu magacaabaa, waxay ku taallaa kaymaha buuraha ku xeeran magaalada Qudus oo ah dhulka la haysto. marka la sameeyay baaritaan iyo falanqayn muuqaalkaasi la xiriirta waxaa soo baxday xog muujinaysa arrimo ka badan kaliya beeninta xanta dilka la xiriirta. waa midda koowaad ee warbixintu waxay la xiriirtaa maqaayadda muuqaalka lagu soo bandhigay iyo sidoo kale ujeedooyin kale oo laga lahaa muuqaalka. maqaayadan marka hore waxaa la sheegay in ay leeyihiin askarta kaydka ee ciidamada Israa'iil. waa maxay fariinta ka dambaysa marka in maqaayadda Netanyahu uu tago? muuqaalka dhexdiisa waxaa sidoo kale lagu arkayaa boorar ay ku qoran yihiin calanka Israa'iil iyo sidoo kale lambarka 12 oo luqadda Cibraaniga ah. sidoo kale qoraal ayaa goobta ku qoran. qoraalka afka Cibraaniga micnihiisu wuxuu ahaa ganacsigan waxaa iskale askari kaydka ka tirsan. tallaabadan maxaa loo qaaday marka? tallaabadan waxay qayb ka tahay baa layiri hindiso uu sameeyey kanaalka 12 oo Israa'iil oo fikradeeda uu lahaa nin lagu magacaabo Hanok Daum. ujeedaduna waxay tahay in bulshada lagu dhiirigeliyo inay taageeraan ganacsiyada ay leeyihiin ciidamada kaydka iyo in askartaasi dib loogu soo celiyo noloshii caadiga ahayd kadib dagaalkii magaalada Gaza. waa sababta koowaad ee ra-iisul wasaare Netanyahu uu u tagay baa layiri maqaayadan oo ciidamada kaydka qaarkood ay lahaayeen. warbaahinta Israa'iil waxay sheegtay marka in mashruucaani loogu talagalay taageerada ciidamada kaydka ee dagaalka ku jiray tan iyo 7 Oktoobar 2023. fariimo kale ayuu muuqaalka xambaarsanaa. inkastoo Netanyahu muuqaalkan uu ku muujiyay jawi degan oo kafee ama qaxwo lagu cabayo, haddana muuqaalo kale ayaa la soo bandhigay. muuqaalada waxaa qayb ka ah in goobta amnigeeda aad loo ilaalinayay oo ciidan badan oo amniga ay ku hareereysnaayeen ra-iisul wasaare Netanyahu. halkaasi marka waxaa ka muuqanaya marka maadaama ciidanka gudaha iyo dibadda maqaayadaba ay joogeen in heerkulka amni uu aad u sarreeyay. yacni marxalad adag oo dagaalka maadaama lagu jiray in ciidanka amniga ilaalinaya aad loo badiyey. muuqaalkan marka si weyn ayuu baraha bulshada ugu baahay. laba arrin ayaana sabab u ahayd. waxaa la sheegay ku dhawaad 70 milyan oo ruux inay daawatay, 100,000 oo kalena ay ka falceliyeen. waxaa sabab u ah marka laba arrin oo ah tan koowaad sida ay u baahsan yihiin wararka sheegaya ra-iisul wasaare Netanyahu in la dilay oo caalamku idil inta ay ku baahin qof kasta ay baadigoobaysay raadinta macluumaadka Netanyahu ku saabsan. iyo tan labaad oo ah sababta ugu badan ee muuqaalka in aad loo daawado ka dambeysay waa dadka oo badankood aad uga shakiyay saxnimada muuqaalka oo waxay yiraahdeen waa AI ama caqliga macmalka iyagoo aad loo falanqeeyay muuqaalkaasi. shakigan laga muujiyay muuqaalka marka la eego marka baraha bulshada waxaa ka dhacay dood aad u ballaaran. qaar ka mid ah dadka isticmaala internetka waxay sheegeen in muuqaalka laga yaabo inuu yahay mid lagu sameeyo sirdoonka macmalka ama AI-da. qaar ka mid ah marka falanqeeyaasha aadka ugu takhasusay muuqaalada noocaani oo kale ah ayaa markii hore waxay muujiyeen shaki ah in ra-iisul wasaare Netanyahu dilkiisa sheeko oo kaliya inay iska ahayd oo sal iraad inaysan lahayn. laakiin markii si taxadar ay qaar ka mid ah muuqaalada ay u daawadeen waxay ka muujiyeen shaki aad u weyn. maxaa yeelay waxay yiraahdeen muuqaalku marka si tartiiba loo daawado halkaas cilad ayaa ka muuqanaysa oo ah in qaxwadu aysan daadan maadaama Netanyahu uu qalloociyay iyo sidoo kale jeebka jaakada ra-iisul wasaare Netanyahu in isbedel uu ka muuqanayo. waxa kaloo aad loo falanqeeyay muuqaalka deegaanka ama goobta uu ku sugan yahay. sidoo kale waxaa la isweydiiyey maxaa dib u dhigay jawaabta Israa'iil mar haddii ra-iisul wasaare Netanyahu uu nool yahay. dadku marka waxay yiraahdeen shakiga waxaa keenay muddada muuqaalka lagu sameynayo maadaama la doonayo muuqaal sax ah oo aan la fahmi karin in la soo daayo. dadka qaar xitaa intaas ayaba shakigii ku kordhiyeen. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa mar kale waxa uu soo bandhigay muuqaal cusub oo muujinaya booqashadiisii maqaaxida xilli dad badan ay shaki weyn ay muujiyeen. horaantii maalintii Sabtida xafiiska ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa wakaalada wararka Anadolu u sheegay in wararka la xiriira Netanyahu inuu dhaawacmay ama uu geeriyooday gabi ahaanba inaysan waxba ka jirin. waa been abuur ayaana lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. laakiin waxa hadda halkan ka muuqanaya ayaa ah fariinta Netanyahu uu dirayay marka laga yimaado shakiga iyo waxyaabaha la xiriira oo ah in ciidanka kaydka goobahoodii shaqada dib ugu laabtaan maqaaxiyadahoodana wax laga cabo si loo dhiirigeliyo
maadaama ay jahwareer badan ay la kulmeen intii uu socday dagaalkii soo bilowday bishii Oktoobar sanadkii 2023. adiga maxaa kaloo kaaga muuqday muuqaalka ra'iisul wasaare Netanyahu? aragtidaada nala wadaag, waad mahadsan tahay.